nin u soo halgamay siyaasadda Somaliland waqti badan ku soo jiray waxaan maayirka caasimadda u malayn maayo inaan saa u sanqadhiyar ahay oo inaan xisbi ka baxo aan xisbi galaa ay sidaa u fududahay oo ay u sanqadhiyar tahay qof aan saameyn ku lahayn siyaasadda Jamhuuriyadda Somaliland intaan u soo halgamay aan maartay u soo halgamin ayaa xaflad loo qabtaa loo gangamaa hoola loo buuxiyaa marka u malayn maayo inay iska fududahay inaan xisbi intaan ka baxo xisbi kalena iska geli karo arrintaas waxaan doonayaa inaan u bayaamiyo shacabkayga waxaana jecelay shacabka reer Hargeysa waliba gaar ahaan aniga dadka taageera ee raacsan waxaan ku fooganahay waqtigeyga dhan geliyaa sidii aan idinku qaban lahaa shaqadii ay dirateen ay igmateen mas'uuliyadda isaaran in aanu taweyn u arkaana taas weeye taasaan ku fooganahay taasaan waqtigeyga dhan geliyaa taasaan ka fikiraa taasaan caafimaadkayga maartay aan uga baqaa inay wax yeesho taasaan culays weyn aniga igu ah xisbi iyo siyaasadda imika socotay ee Somaliland aniga Hargeysa igaga weyn dee waxana in lagu celceliyaa waxba ma tarto waxaan jecelahay in hal mar ay ku koobanto si aanu shaqada waqti uga helo oo aan shaqada nalooga mashquulin dadkan arrinta ku celcelinayana waxaan u sheegayaa wax aan ahayn inay shaqada naga mashquuliso ma soo kordhinayso anigu waan sheegtay hankayga maalintan han yeesho maalintan doonayaan arrimaha siyaasadda u soo banbaxo aniga sheegi doona qofku gaawaha u socda dee goortiisii xilligeeda iyo waqtigeeda maayir hore arrinta waxa uga hadlay afayeenka xisbiga kulmiye oo sheegay inaad golaha dhexe ku jirto shalay iyo maanta labada goorbana waxa laga xaadiriyay shirkii golaha dhexe oo madaxweynena fadhiyo horena waa loo hadalhayn jiray inaad golaha dhexe ku jirto maxaa qarsoon wallahi aniga dadkay way yaqaanaan waxaan ahay nin maaragtay ku dhiiran in runta sheego waxaan ahay nimaan looga baran inuu been sheego arrimahaasi inuu xisbigu u malayn maayo inuu qof uun iska qaadanayo xisbigu dee foom buu leeyahay kulli foom baa la buuxiyaa membership fee baa la bixiyaa arrimahaasoo dhan midda hadday yaalaan ha keenaan anigu ma ogi arrimahaas waxaana jecelahay in warka runtiisa iyo xaqiiqdiisa waxa weeye xisbigaa kama tirsani aniguna ma ihi qof iska odhan kara xisbigu ku jiraa anigu haddaan xisbi gelayo waa layga dhex dareemayaa xisbigaasaan ka mid noqonayaa arrimihiisaan ka shaqaynayaa waa laygu arkayaa inuu guulaystaan ka shaqaynayaa dee maaha uun hebel xisbi buu ku jiraa iyo arrimahaasi arrimo aniga liigu mateli karo maaha maayir waxaad ka soo baxday xisbiga mucaaradka ee wadani isagii wadani makama taa wallaahi dee xisbiga waan ka soo baxay runtii horena waa anigii u sheegay anigu xisbiga waan ka tirsanay laakiin waqti ma geliyo isaga waqti badan ma geliyo waqtina uma helo laakiin kuwii isoo doortay xisbiga ka mid ahaa iyo xisbigayguba raalli bay igaga yihiin inaan u banbaxo oo aan ka shaqeeyo shaqadii lay doortay ee magaalada Hargeysa waxaan sidoo kale jecelahay labada xisbiga kalena saas leeg inay igu garab istaagaan igu taageeraan igu caawiyaan inaan shaqadan qabto waayo Hargeysa hawsha taala hawl yar maaha qofka shaqadan hayana waxaa la doonayaa shacabka iyo xisbiyada iyo xukuumadda inay dhammaantood ku gacan siiyaan si loogu guulaysto Hargeysa in la dhiso oo caasimadda ay u qalanto laga dhigo qofkaasi wuxuu mudan yahay taageero qofkaasi wuxuu mudan yahay garab istaag qofkaasi wuxuu mudan yahay in la isugu geeyo waxa la wixii taageero la helayo ummadana horaan u sheegayo magaalada Hargeysa dadkeedu asxaab kala duwan bay ku jiraan kol hadii ilaahay aniga duq iga dhigay kelmadan duq macno weyn bay leedahay ummadda inaan isku hayo ayaa laga rabaa midnimo laga rabaa inaan u dhaxeeyo dadka laga rabaa asxaabta inaan u dhaxeeyo laga rabaa imika ninka madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ka noqda ummadda oo dhan buu u dhaxeynaya ummadda oo dhan madaxweyne u yahay mid doortay mid aan dooran xisbigiisa xisbi kale ma yarnimadu waa saas oo madaxweyne yarow waa saas oo kale marka anigu hawshii ay ku mudnayd maayarnimada ayaan hayaa waxaan jecelahay inaan halka ku ekaado maalinta aan doonayo inaan xisbi hankayga la galana anigu inaan ummadda u sheego idhaahdo waan u soo banbaxayaa shaqadii xisbiga waaye cabdikariin anoo taadaa kugu raacay maayir waxaa jirtay xilligii ololaha in aad ballan u qaaday musharaxa xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan ciro oo aad sheegtay in uu kuu hiiliyey isagana markiisa aad u hiilisay oo aad dhisayso miyaanay joogin xilligaad isaga u hiili lahayd wallaahi dee cabdiraxmaan waan soo dhisnayoo markuu musharaxnimada doonayay dee waan fadhinay golihii lagu doortayoo raggii doortay baanu ahayn waan u hiilinayoo inuu maanta musharax xisbiga wadani yahay annagaa ugu hiilino dee halkaas ahayd oo waa la ogaayo ummadoo dhan baa mara ka ahayd marka cabdiraxmaan waanu u soo hiilinay inuu musharax xisbiga noqdona annagaa ugu codaynay annagaa ka shaqaynay inuu musharax ka noqdo halkaa laakiin markay maraysa wixii ka dambeeyey howlaha xisbiga iyo siday u socdaan rag baa wada gacanta ku haya xilalka ka haya kuwaasaa laga rabaa xisbiga inay shaqadiisa u go'aan anigana wixii loo doortay xisbiga ii sharxay waxayd inaan magaalada Hargeysa dhiso oo aan ka shaqeeyo iyaguna aniga tan bay igu ogaanayaan raggii walaalada ahaa ee cabdiraxmaan ku jiro
kuwa kale qolooyinka madaxda kale ku jirto iyagana waxaa laga rabaa inay shaqada xisbiga qabtaan saan raalli baan ku kalanahay ugu dambayn maayer waxaad ku celcelisay markaan han yeesho ama aan doonayo inaan wax shaaciyo waan shaacinayaa iminkana ururaa la gelayaa suurtagal ma tahay in mid ka mida ururada aad musharax ka noqoto aad soo maya walaal taasi iminka hadda dee waxaanay suuragal u ahayn waxaan beerdaraynayaa mas-uuliyaddii lay doortay mas-uuliyad baa aniga lay doortay hargeysaa lay doortay hargeysaa wax walba iga weyn marka haddaan iminka waanan aaminsanahay inaan laisku wadi karayn in hawl urur la galo oo siyaasad la galo iyo in hargeysa loo shaqeeyo marka hargeysaan intaan halkaa in yaroo ka mid a waqtigay geliyo ayaan inta kalena siyaasad gelinaya suuragal ma waxaan jecelahay 100% enerjigayga tamartayda kartidayda inaan wada geliyo shaqada hargeysa marka aan shaqadaa soo dhammeeyo inaan u bambaxo arrimaha kale siyaasadda haddayba se dhacdo dee qofka biniaadan baynu nahay ma odhan karo maanta iyo saddex han ma yeelan karo ma odhan karo haddaan han yeesho waxaan jecelahay aaminsanahayna inaan mas-uuliyadda halkaa dhigo dabeetana taa kale u bambaxo marka anigu waxay la tahay hawshaan imaka haynaa wax walba ka weyn in dadkayguna hawshaan nagu taageeraan nagu gacan siiyaan cid kasta oo in hawshaa aan u bambaxno oonu ka shaqeyno hargeyso horumarina ka soo horjeedana in dadka reer hargeysa iyo taageerayaashooda ay nagaga filaadaan oo idhahdo waa nin qofkani shaqaynu u diranay shaqadiina waa hayaa wixii kale laga doonaa waa faduul iyo culays weeye ugu dambayn arrin baad sheegtay waxaad sheegtay inaad golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ka mid ahayn arrintaasi dadka qaar baa aaminsan in dagaallo cusub ay kugu furmi karaan oo xagga golaha lagaa soo mari kara ama dhinacyo kaleba ma aragta adigu caqabadaha kaa hor iman kara maya xasanow taas meesha waad ka saariyo anigu waxaanay nin aad maaragtay u aaminsan ilaahay waana sheegaa mar walba iyo goor kastaba kursigan aan ku fadhiyo ilaahay baa qoray inaan fadhiisto inta ilaahay qorayna waan fadhiyaya haddii bini aadamka adduunka joogo dhami dagaal igu soo qaado igama kicin karaan kursigan ilaahay baana saaray ummadayadaan ugu fadhinaa reer hargeysaan ugu shaqaynaynaa ninka doona inaan hargeysa loo shaqayn ee mataqaanaa doona inaan kursigan ka kacnana ilaa uu ilaahay u sahlo suurageli mayso marka cabsi aniga xaggaa igama hayso nin arrimaha ka cabsanayna maihi haddaan waxaa ka cabsanayo kuumaan sheegeen su-aalahaadii weydiisana kaagama jawaabeen anuu maihi nin cabsiya ka hayso kursiga iyo goorta laga kicin doona iyo ma lagaa kicin doonaa iyo waxaa nin aaminsan maihi waad garanaysaa xasanow kursigan dee intaynu u soo marnay ilaahay baa kursigan ina keenay inta ilaahay qorayna waa fadhiyeena qof kastoo dalkan jecel oo magaaladan jecla wuu arkayaa annagoo daacada inaanu ku fooganahay magaaladan dhismaheeda iyo horumarkeeda